Macalinka kooxda kubadda cagta ee AS Roma, Jose Mourinho, ayaa weerar ku qaaday garsooraha Ingiriiska ah ee Antonio Taylor oo dhexdhexaadinayay kulankii UEFA Europa League oo ay markaasi xalay la ciyaareen naadiga ka dhisan dalka Spain ee Seville. Kooxda reer Spain ayaa markii toddobaad taariikhdeedu ku soo guuleysatay tartankan kadib markii ay rigoorayaal markaas ku garaacday kooxda caasimadda Talyaaniga ka socotay oo 1-1 markaasi ay ku kala baxeen. waliba waxaa markaasi lagu sii daray waqti dheeri ah iyada oo labada kooxood ay isku daaleen. xitaa waqtigii dheeriga ah ee ciyaartu lagu daray ayaa waxaa markaasi labada kooxood ay ka dhigtay in ay ismari waayaan 120 daqiiqo ee la ciyaaray, waxaana loo gudbay rigoorayaal iyadoo markaasi ugu dambeyntii 4-1 rigoorayaal ah ay markaasi ku qaaday kooxda ka dhisan dalka Spain ee Seville. Taylor ayaa lagu eedeeyay sidii markaasi uu dhexdhexaadiyay kulankan oo uu markaas 13 kaar jaale markaa uu bixiyay. waa rikoorkii tirada markaasi kaararka ugu badnaa ee kulan final Europe ah la bixiyo, taasoo markaasi ka yaabisay dhammaanba mucaashaqiinta kubadda cagta. Mid ka mid ah go'aamada uu Jose Mourinho sida weyn markaas uga xanaaqay ayaa ahayd in kooxdiisa Antonio Taylor uu markaas u diiday wax markaas u muuqday rigoore kadib markii ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Seville ay gacanta markaasi kaga dhacday kubadda isaga oo xirada ganaaxa markaasi ku dhex jira. waa sharaf dhac nin yahow, waa sharaf dhac ayuu markaasi ku qeylinayay Jose Mourinho oo la arkay isagoo markaasi afka furtay isaga oo markaa garaashka gawaarida basaska ee garoonka markaasi joogay ka hor inta uusan arkin garsoore Taylor oo uusan markaasi ku dhihin erayo aan wanaagsaneyn oo markaasi uu kula jeeday amaba uu ku furfuranayay carada markaas uu qabay garsooraha reer England. intaasi kaliya kuma ekeen Jose Mourinho waxa uu markaasi u tagay baska garoonka markaa ka qaadayay garsooraha isaga oo markaasi ku yiri hambalyo waxa tahay sharaf laabe. Jose Mourinho ayaa cishan kari waayay carada uu markaasi u qabay garsoore Antonio Taylor isaga oo markaasi ka xanaaqsanaa in markaa laga qaado koobka Europa League. Si kastaba haatee kooxda kubadda cagta ee Seville ayaa horey ugu soo guuleysatay koobkan 6 jeer oo horey iyadoo markii toddobaadna habeenkii xalay markaa qaaday. 7 jeer oo ay final tagtay Seville marna lagama qaadin oo ay ku guuleysatay koobkan. Mourinho oo markaasi taga final weligii lagama qaadin marka laga soo tago habeenkii xalay oo markaas nasiibka uu ka heeliyay kooxdiisana laga qaaday tartankan xiisaha badan. Jose Mourinho ayaa markaasi muujiyay sida weyn markaasi uu kaga careysan yahay kulanka xalay qaabkii loo maamulay isaga oo markaasi caradii uu qabay kala dul dhacay garsoore Antonio Taylor.